السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا موقال عصب وان كغا حدلي دونو سيديد أرين آذن أوغين أو كدي مسجد الأقصى مدكو المسلمين سيديد أرين آذن أوغين أو كدي مسجد الأقصى مدكو المسلمين maxay muslimiintu ugu walwalsan yihiin arinta al-Aqsa maxay tahay muhiimadda ay leedahay magaalada barakaysan ee Qudus maxay u noqotay Qudus magaalo barakaysan maxay tahay muhiimaddu uu u leeyahay muslimiinta Masjidul Aqsa ee Qudus ku yaal su'aalahaas aan kor ku soo xusnay waxaa ka jawaabaya Dr. Zakir Naik Allah xafida maqaal uu ku qoray luqadda Ingiriiska. Dr. Zakir waxa uu ku soo koobay muhiimadda uu leeyahay Masjidul Aqsa ee ku yaala magaalada Qudus ilaa iyo 8 qodob waxayna kala yihiin. 1. Qudus waa magaalada saddexaad ee ugu barakaysan dhulka marka laga soo tago magaalooyinka Makka iyo Madiina sida Quraanku uu cadeeyay iyo sunnada Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. 2. Masjidul Aqsa waa masjidka labaad ee dhulka laga aaso waxaana dhidibada loo taagay 40 sano kadib markii Kacbada laga dhisay Makka. 3. Al-Aqsa waxa uu ahaa qibladii ugu horeysay ee muslimiinta yeeshaan. Muslimiinta Allah ayaa ku amray inay u jeediyaan wajigooda xilliga ay salaada tukanayaan masaajidkan ku yaala Qudus kahor inta aan Kacbada qibla ahaan loogu amrin inay u jeestaan. 4. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu kula taliyay muslimiinta inay booqdaan Masjidul Aqsa wuxuuna u yaboohay salaadaha inay ku tukadaan sida uu tilmaamay xadiiska ay wariyeen Muslim iyo Bukhari. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay 3 masjid u kala safra masjidkayga ku yaala Madiina masjidka barakaysan ee Makka iyo Masjidul Aqsa ee Qudus ku yaal waxaana wariyay Muslim iyo Bukhari. 5. salaada aad ku tukato Masjidul Aqsa waxaad ka helaysaa naxariis ballaaran awaalmarin halkii salaad u dhigmata 5,000 oo salaadood oo aad ku tukato masaajidada kale. 6. Masjidul Aqsa meesha uu ku yaala magaalada Qudus waa meeshii rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loogu gudbiyay habeenkii dheelminta Israa wal Mi'raaj. Muslimiinta waxay rumaysan yihiin in Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laga soo waday habeenkii dheelminta magaalada Makka oo u sii gudbay Masjidul Aqsa inta lagu guda jiray habeenkii dheelminta halkaas uu rasuulka ugu sii gudbay samada waxaana cadeynaya aayada suuratul Israa. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. oo macnaheedu yahay waxa xumaan kana sahan allihii dheelmiyay adoonkiisa habeenkii dheelminta kana soo dheelmiyay masjidka al-Haram una dheelmiyay Masjidul Aqsa masjidkaas oo barakaysan hareerihiisa si aan u tusino aayadaheena alle waa maqle wax walbana arke. 7. Masjidul Aqsa meesha uu ku yaala magaalada Qudus waa meeshii uu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ku hogaamiyay nabiyadii ka horeeyay una ku tuujiyay salaada kadib uu kaga sii gudbay oo uu ka koray samada si uu alle amarkiisa ugu soo qaado ummadiisa amarkaas oo ahaa in lagu soo waajibiyay 5 salaad ee maalin walba aan tukano. 8. Masjidul Aqsa waa meeshii ugu dambeysay ay ku nasteen nabiyadii hore sida Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq iyo nabiyadii rafiiqa la ahaa nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qudus waa magaalo muslimiin hase yeeshee diimuhu kala duwan ayaa waxay uga dhigan tahay meel barakaysan oo mudan in la hanto sooyaalka taariikhduna waxay ku tusaysaa in markasta ay gacanta ugu jirtay qolada markaas gacan sareysa magacaabisteedana ma ahan qadiyad siyaasadeed ee waa loolan diimeed oo soo jireen ah.